بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد shaydaanku waa cadowgeena ugu weyn ee aynu leenahay dunidan korkeeda. waxa uu inagu kalifaa in aynu sinaysano, waxa uu inoo qurxiyaa in aynu xatooye samayno, xanta iyo been abuurka ayuu inoo qurxiyaa, nafta oo la gooyo in ay fududahay ayuu inoo sheegaa, in aynu nafteenna waxa ay jeceshahay samayno ayuu inoo qurxiyaa, dunuubta waaweyn dhammaanteed iyo macaasi oo dhan ayuu inoo wanaajiyaa. intaa marka uu inagu kalifo, allah ayaynu ka magan gallaye ujeedkiisa oo ah in aynu gaalnimo ku dhacno ayuu inoo horseedaa, ilan waa inta uu u socday. marka uu helo dadka raacay oo naarta la gelayana, maalinta qiyaame marka la isu yimaado waxaa u jeediyaa khudbadan dadkii isaga raacay sida qur-aanka kariimka ah ku sugan suuratu ibraahim aayadda 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. shaydaankii baa waxa uu lama qudiya al-amr kolkii arrinkii la dhameeyay ee arrinkii dhamaaday qolana naarta ku xarootay qolana jannada khalqiga ilaahay kolku saa u kala abaal mariyay baa shaydaan baa khudbadeeyay biisatil khudbataas oo liidata wuxuu yiri shaydaan inna allaha wa'adakum wa'da al-haq wardadiyo ilaahay ballan xaq buu idin qaaday ووعدتكم أنقول بلن باندين قاضي باطل ويه فأخلفتكم دوان ذيك قبح وما كان لي عليكم أنقول الدشين كمان لهين من سلطاني وحوده تعيدنا إذا كقبت مجرين إلا أن دعوتكم إن ندين يرون ندين كعن هذه والمويان كعن هذه السنباتشرين فاستجبتم لي دوايا قبشين ويصدق بقشين فلا تلوموني أنا ما انتهي عناننا ولوموا أنفسكم نفينا عنانت ضديهو أهل ناركي ما أنا بمصرخكم أنا ما هيكي إذين قرقاري لها إذين قرمن لها وما أنتم بمصرخي إذين كنا متي إذين كوي إي قرقاري لها إي قرمن لها إني كفرت وحن كقالوا ما أنت أندي بما أشركتموني من قبل شركي وحي إلهي إلى وذا جنيسين إلهي أو بربر جليسين شركي ما أنت كمتشرو إن الظالمين ظلم فلياش لهم عذاب أليم عذاب كل البيليه نو ده ظلم فلياش سينو هين حجست haddii uu inoo sii sheegay rabbigeen subxaanahu wa tacaala shaydaanka iyo halka uu ku dambaynayo, miyaanay ahayn in aynu hadda kasii digtoonaano inta aanay naftu inaga bixin. rabbi ha inaga badbaadiyo dhagarta shaydaanka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.